xilli dhawaantan ee ciidamada booliiska gobolka Limpopo ay ku yaala xadka ay wadaagaan wadamada South Africa iyo Zimbabwe ay xireen goobo ganacsi oo ay lahaayeen ganacsato Soomaali ah ayaa waxa halkaasi booqasho ku tagay gudoomiyaha jaaliyadda Somali Community Board Mudane Ismaaciil Soomane. gudoomiyaha jaaliyadda ayaa kulamo la qaatay saraakiisha ciidamada booliiska gobolka Limpopo waxa uu kala hadlay arrimo la xiriira ganacsiga Soomaalida iyo xiritaankii dhawaan ciidamada ay u geysteen dukaamo ay lahaayeen ganacsato Soomaali ah isla markaana agabkii yaalay hor u qaateen. Mudane Ismaaciil Soomane ayaa sidoo kale waxa uu kulamo la qaatay jaaliyadda Soomaalida ee ganacsatada ku nool gobolka Limpopo waxa uu sheegay in gudoomiyaha ay sameystaan sharciyo ganacsi oo ay bixiso dawladda hoose wadanka South Africa si ganacsigooda u sii wataan. shirkada aad runtii noo qanciyay kadib anaga rajada waxaan soo wacay ninkii booliska gobolka ninka ugu sareeyo oo uu sheegay Simon Bebe oo ka yimid Johannesburg laga soo wareejiyay wuxuu class commander runtii ilaa xad wada shaqeeyna waa aadna u fiican ninkii aan balan lahayn in uu soo diray isaga martii uu joogtay ninkii aan soo wacay isaga xafiiskiisa ugu tagnay abaari markay ahayd 12 iyo barkii subaxnimo ama 5 saac bar hadda si loo yaqaan waxa la fadhiyay laba korneyl oo mid uu yahay legal advisor uu yahay gobolka oo dhan booliska uu yahay waa lawyer waana boolis oo korneyla ninna wuxuu ahaa maxaan ku raahdaa nin maxaan ku raahdaa adiga hawlgalka balqaana magaalada ka wakiila runtii adiga wada hadal aad u badan ka bacdi waxay yiraahdeen annaga waxaan nahay hay'adda kaliya aan ka daalin inay shaqeyso maybe hay'adaha kale departamentada kale in mararka qaar shaqadooda sida la rabo ay u gudan waayaan laakiin annaga boolis ahaan habeen imaan waxaan u taaganahay sida aan bulshada u caawin lahayn sidaan karaynka uga hortagi lahayn sida maxaan ku raahdaa sharciga dalka aan u ilaalin lahayn qodobkaana waxa waa qodob sharci ah waaye annaga waaxda iyo departamentada uu khusay nooga yimid qof kasta oo maxaan ku raahdaa business le ama furanaya inuu sameeyo waa lagu khasban yahay fiilaha annaga foreign kaliya annaga ma ku dhibayna ama Soomaali ama Ethiopia waxaas annaga ma qorno waxaan qornaa waxa waaye waxa waa sharci baarlamaanka maxaan ku raahdaa Limpopo legislative ayaa baas gareeyo sharci. ugu dambeyntiina gudoomiyaha jaaliyadda Somali Community Board Mudane Ismaaciil Soomane ayaa ugu baaqay ganacsatada Soomaalida ee gobolka inay sameystaan guddiyo ganacsi oo la xaala bulshada gobolkaasi ku nool. dhawaan ayay markii ciidamada booliiska gobolka Limpopo ay xireen isla markaana hantidii taalay ee hor u qaateen goobo ganacsi oo ay lahaayeen ganacsato Soomaali ah. Cabdullaahi Qorshe, telefishinka qaranka Soomaaliya, Cape Town, South Africa.